ugu dambayn Yasmin waa ay soo hadashay. Waxaan filayaa gabadhan wajigeeda in aad taqaanaan ama aad xasuusataan. Maalmihii la soo dhaafay sawiradeeda ayaa si aad ah ugu faafay social media. Waxaana la sheegay in ay samaysay wax xadka ka baxsan. Yasmin waxay ahayd gabar xaas ah oo awlaad ay u joogto. Laakiin iyada oo xaas ah ayaa waxa la sheegay in ay xiriir hoose ay la samaysay nin madow ah oo kamid ah dadka daroogada ka ganacsado isla markaana Google Dhaaf ay wadaageen. Waxaan idiin hayaa xaqiiqda iyo sida ay wax u dhaceen oo dhameystiran iyada oo afkeeda inooga sharixi doonto sheekadoo dhan. Laakiin marka hore muuqaalka Lexar oo sii share gareey si dad badan ay runta iyo sheekada waxa ay tahay ay u ogaadaan. Gabadhan lagu magacaabo Yasmin waxay ku nooshahay wadanka Ingiriiska. Waa gabar xaas ah Soomaaliya balse nin madow Afrikaan ah oo xiriir hoose ay la samaysay ayaa muuqaalkeeda social media ku faafiyay iyada iyo isaga oo dhaqan xumo sameynayo. Balse Yasmin maanta wax walba oo dhacay iyada ayaa afkeeda inoogu sheegayso ay ila daawo muuqaalkeeda. Let me just say, guys, man, like, all they want to do is use you. It doesn't matter how sweet you are, how much other things you like, your hobbies, whether you like crocheting, cooking, all that shit. It doesn't matter to them. It really doesn't matter. Because at the end of the day, all they see is just something they can use, like, and it's cool. Like, I don't care to be used. I've never cared to be used. But, you know, it is what it is. It is what it is. So, gabadhan dhalinyarada ah inta ay hadlaysay oo dhan waxay marar badan ay ku soo celcelisay ninka wuu isticmaalay oo ula jeedo in qaab dhaqaale ama si kalaba uu uga faa'iideystay. Sidaan wada ognahay dumarka Soomaalida ama dhammaan dumarka aad ay u qalbi jilcan yihiin sidoo kalena aad ay u lacag jecel yihiin. Labadaas qofkii ka qabtaa oo qalbigeedana qabtaa lacagna u dhiibaa waxay u badan tahay gabadha in uu kontaroolo isla markaana uu isticmaalo. Wax walba ayuu noqon karaa isticmaalkaas in howlo qofkaas u gaar ah ay u samayso iyo in waliba si kale uu isticmaalo oo ah qaabka ragga iyo dumarka ay wax iskula wadaagaan. Gabadhan marka wajigeeda waad u jeedaan waxa ka muuqato ilin aad u daran, niyad jab iyo murugo. Wax walba oo qof bini aadan ah uu la kulmi karo oo cadaadis, ceeb iyo wajigabax ahba way la kulan. Muuqaalkeeda marka wuxuu dirayaa fariin wuxuuna u dirayaa dhammaan dumarka si gaar ah gabdhaheena Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. Intiina badan waxaan nagula eedeeyaa in aad ragga ajaanibta si gaar ah aad u laakiin ogaada waxa jirto maalin tan oo kale ay idinku dhici doonto. Ragga aad xiriirka la sameynaysaan ama aad Google Dhaafka la sameynaysaan idinka oo xaasas ah ama aanba ahayn maalmaha kamid ah ayay sidaan oo kale idin soo qarxin doonaan Ilaahay hortiisa iyo ummadda hortoodana aad ceeb